wax ka baro taariikhda Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa wuxuu ka mid yahay 8 masaajid ee booqashada loo aado. Ilaahayna Qur'aankiisa uu ku tilmaamay Masjidul Aqsa waa qibladii ugu horeysay ee muslimiinta, waana xaramka saddexaad ee islaamka. Masjidul Aqsa waa meeshii laga dheelmiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenkii al-Isra wal Mi'raj. haddaba Masjidul Aqsa kaliya muhiim uma ahan Falastiin, balse wuxuu muhiim u yahay dhammaan muslimiinta meel walba joogaan. balse waxaa nasiib daro ah dad ayakiiba sooman bisha Ramadaan ay sii dhamaanayso, haddana lagu dhibaataynayo diintooda iyo meeshii ay ku dhasheen oo ay xaqa u lahaayeen. haddaba Ilaahayo waxaan ka baryaynaa in aad u gargaartid walaalaheen muslimiinta ah, dhammaan muslimiinta meel walba ay ku nool yihiinna aad u gargaartid. maanta adiga ayaa ku filan, wamaa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu.